magacayga horta waxa weeye Muna Cabdinuur Jaamac waxa ku magac dheer Muna Dhoolacad problemka xaliyay walaal wuxuu yiri team isna team wali only ba ahay hal qof ba ahay afka ana sameeyay ana rabo inaan fuliyo problemka xaliyay waxa weeye 2012kii caqabado aniga naftayda ku soo waajahay caqabadana waxay ahayd boosaasa ka imi dhakhtarka indhaha aaday waxaan ahaa arday loo ogolayn inuu waqti badan qaato waxay igu qaadatay dhakhtarka indhaha kaliya inaa sugo bil kaamila system kasto aan maray marna waa ka leexan way bisha inaa sugo waxay caqabad igu noqotay inaa bishaas daraasadeeda i dhaafto deen markaa noqday ba waxaan isweydiiyay bishaas magaalada aan joogay waxaan isweydiiyay ka war hadaa masaafir ahaan lahayd dhaqaale aad hoy ku joogto aadan haysan waqtiga inta la qof uusan ka go'i karin hooyo ilmaheedii u shaqaysanaysa ama aaba ilmihiisa u shaqaysanay haduu yahay kadib waqti dheer waxaan inta xalinayay maxaa fududeyn kara seeba lagu heli karaa si sahlan qofka masaafirka ugu fududaan kara magaalo uu ku yahay masaafir waxaan sameeyay abka la yiraahdo ama webka la yiraahdo kaafiye xaqiiqdi magaca ka dhihan kartaa abka kaafiye wuxuu u xalinayaa bulshada oo u sahli karaa qofka masaafirka ah hadii uu gobollo kale ka yimaado oo halka yimaado wuxuu u sahli karaa inuu dhaqaalihiisa horta u ilaaliyo qofka masaafirka sidoo kale waqtigiisa u ilaaliyo kaafiye adigoo gurigaaga jooga goobtaadii jooga ba dhakhtar ala dhakhtarka rabtid numberka goosan kartaa adoo isticmaalaya qaab tiknoolajiyad ah moobilkaaga gacanta ah xilligii balanta lagu qabtay dhakhtarka iimaanaysid sidoo kale waxaan abku uu leeyahay wuxuu leeyahay sidoo kale hoteeliski qofka masaafirka magaalada haduu sabab cid ka garanay ka waran hotel uu ku deganay garanay hotelka tayada leh hotelka qiimaha leh uu sanba garan karin ka waran abka kaafiye wuxuu u sahlayaa goobtii moobilkiisa gacanta asagoo haysta inuu ka dhax doorto hotel al hotelku rabo qiimihii waa ku qoran yahay bareyskii waa ku qoran yahay meeshuu ku yaalo locationkiisi yaani bisaraha adiga iskala juuskaaga sidoo kale wuxuu ku fududeynayaa caqabada ah hooyooyinkii markay soo xagaa baxaan ay yimaadaan xilliga fasaxeedka guriyo ka fog madaaristi baa loo qabtaa qof baa u qabanaya laakiin abkan wuxuu u sahlayaa kaafiye ayadoo moobilkeeda gacanta haysata guri alla ama maxaafad alla xaafaday rabtay inay ka dhex dooran karto oo xoriyadeeda ayadu leedahay sidoo kale abku wuxuu ku dhiflad garaysan yahay luqadda Soomaaliga dadka waxaan anagu Soomaali ah si ay u fahmaan dadkeena afkooda oo ay ugu fududaato haddaba shirkadda kaafiye waa shirkadda kaliya oo ugu horeysay oo aan anigu dhiflad gareeyo geeska Afrika aysan wali keenin Soomaaliyana hadda keenay sidoo kale waxa ahay gabadha kaliya oo isku dayday inay ab soo saarto si rag ugu tartamayaan tiknoolajiyada laakiin macal asaf ma ahayn dadkii loo soo saaray dadka ani hadda wuxuu keenay ma ahayn dadka aniga hadda dadka waxa u keenay ma uusan ahayn dadkii loo soo saaray caqabadahan kala kulmay waxaan filayay in aad leeyagu faani doono oo si fiican liisoo dhaweeyay laakiin ma aysan noqon waxaan soo bandhigay kowdii bisha March baan soo bandhigay heer waxa la gaaray la dhaho ma gabar baa sameysay ma tiin baa ku tihiin ana u qalmin inaan dalku wax ku soo kordhin karo sidoo kale waxaan maalgelin ka doonto maadaama qof dhalinyaro ahay oo hal abuur dalka u keentay barabaleen xalisay oo fuudeynaysa bulshadii barabaleemkii
baa waxaan la raadsaday inaan maalgelin helo ragga dhan maanta waxaa aad uga mahadcelinayaa Siciid wuxuu ahaa shakhsiga kaliya ee tilmaamaya meelaha raba inaad tago waa ragga dhan oo idilde walaalahay ku dar shakhsiga kaliya oo aan taageeri karo markaan shirkadii ula tagay inay dhiirigeliyaan iska daaye waxa dhan iska soo wareeji gabari ma wadi kartee haddaba dadkaygiyo fariinta ugu dambayso aan dirayo aniga dadka i hor fadhiyo waxaan jeclaan lahaa inay ahaadaan maalgeliyayaashii si aan fikirkayga iyo baahiyaha bulshada aan uga miro dhaliyo laakiin macal asaf ma aysan noqon dadkii maanta i dhiirigeli lahaa inay hor fadhiyaan waayo dadkeenu ma yaqaanaan xirfadaha cusub inay maalgeliyaan soo la dhaweeyaan dhiirigeliyaan kaba daranba gabar inay dhiirigeliyaan ragguye ragga maanta jirana labayba u qaysa saddex bay u qaysamaan waa tiimka Siciidiyo inay ku hogaamiyaan iyo tiim maanta ragga la hanti haysta ma jirto gabar maanta imaal gelin karta aniga oo i dhigi karta waan ku maal gashanayaa laakiin maanta waxa hantida haysta waa ragga inay adigu dhiirigeliyaan iska daayee iska soo wareeji xoogaaga lacagta qaado shirkadana ka mid noqo laakiin taa kama yeelin kan saddexaad oo soo haray waa kan tacadiga iyo dulmiga iyo kufsashada u geysanaya gabdhaheena Soomaaliyeed saddexdaasi raggu u qaysamaanba ragga hantida haysta ma rabaan booskooda maanta inaan anaga nimaano xaqiiqi baa inagala hadlayaa ma rabaan inaan dalka wax saameyn ku yeelano ma rabaan booskay maanta taagan yihiin inaan anagu ka bedelno waxaan u tagay shirkadda Golis oo shirkadda ugu weyn waxaan u tagay shirkadda Amal waxaan u tagay shirkadda Samtel waxaan u tagay shirkadda la yiraahdo Salaam Bank wali wax jawaab kama kii ugu fiicnaa kuwii ugu fiicnaa waxaan iska soo wareeji hadda uu fariinta ugu dameysan diraya fariinta ugu dameyso aan diray waxa weeye ganacsatada Puntland haddii ahaadaan shirkado iyo haddii ahaadaan kuwa kale oo ganacsiga haysta oo maal gashta haddii maanta wiil booskaygu taagnaan lahaa I'm sure ragga dhan inay maal gelin lahaayeen laakiin macal asaf inay gabar intay hortimi ay maal gelin waayeen haddaba ragga Soomaaliyo fariinta ugu dambaysa inay diray waxa weeye horta aniga inima baqalmo inaan xinii soo saaro kow inima baqalmo inaan aniga wax xinii soo saaro secondiga labaad mar labaad ba codsigay ku celinaya waa akhiiradii ugu dambaysay dhamaantiina marqaati ba ka ahaan doontaan waa Golis Samtel dahabshiil intii aan tagay haddii ay 72 saacadood igu soo jawaabi waayaan jawaabta ugu dambaysay ay isiin waayaan waa 3 habeen iyo 3 maalin iyo ganacsatada kale oo Puntland baa la hadlaya waxaan maalgelin weydiisan doonaa bari ka maali anoo maalqabeen u iman doonaa dawladaha walaalaheena oo dariska ah sida Djibouti Somaliland ganacsatadooda iyo Soomaaliya waxaan ganacsigay ka hirgelin doonaa dhammaan goboladaas oo dhan waxaan fariinta ugu dambaysa u dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed ha isku tashtaan raggu ma rabaan kooda ganacsiga hantida la ina booskooda nimaano koodii liitana waa kan tacadiga iyo dulmiga noo geynaya haddaba gabdhaha Soomaaliyeed fariinta kale ayaga u dirayo waxa u baahanahay 1,000 gabdhood oo min $100 igu deeqa waayo ayagan hilibkoodii ahay waxa inii ballan qaadayaa nin dama inuusan tacadi noo geysan dulmina u geysan gabdhaheena yaryarka iyo hooyooyinkeena annagoo la tiigsanayna sharciyada iyo maxkamadaha caalamiga ah annagoo maal gelinayna in ninka noola soo qabto waana mahadsantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh DMI